kulanti haboon idil ahaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii milicsiga haldoorka ee aad kala socoteen Alool Media TV. barnaamijkeena maanta waxa aynu ku eegi doonaa hay'adda duulista oo cabasho ba'ani uu ka soo baxay kadib markii xafiiska shirkadda diyaaradaha ee Djibouti Airways Boorame ay hadleen. maamulkaas oo hadalkiisa si adag u dhigay kuna eedeeyay hay'adda duulista in ay dhabarjab ku tahay in airporto kale ay ka hirgalaan gudaha Soomaaliland. hadalka gudoomiyaha xafiiskaas ayaynu ku horeynaynaa waa kan. anigoo ah Ibrahim Cabdiile shirkaygan jaraa'id wuxuu daaranayaa maanta waxaan ahay maamulka xafiiska Djibouti ee ku yaala Boorama. xafiiskan oo ugu talagalay inuu adeegyo badan qabto oo ka mid tahay xashka iyo cimradu. wuxuu furayaa xafiiskani muddo 2 sano iyo badh in ay madaarkii Boorama aanu shaqeyneen. deeta waxaan ka fikiray bal sidii mar labaad oo madaarkaasi loo furi lahaa. madaarkaasoo muddo 30 sano ama 20 sano ka hor hay diyaaraduhu saddex diyaarood ka duuli jireen oon aniga oo Ibrahim Cabdiya 2 jeer madaarka Boorama xashka ka tagay. hawl dheer iyo dad badan muxsiniina oo wax ku bixiya madaarka shaqo weyn baan ka qabanay. xataa waxaan keenay raadiyoogii diyaaradaha hagayay ayaan Dubai u diray oon soo iibinay. hawshii madaarkii kolkaan hawshiisii gabagabaynay waxaan u tagnay maamulka ku shaqada madaarada Soomaaliland annagoo ah odayaal dhaqameed ganacsato wasiiro maamulka degmada. wuxuu nagu yiri hadal aan munaasib ahayn oo xageed xafiiska ka soo gasheen ayaa naga soo baxday. halkee ayaad xafiiska ka soo gasheen? horta runtii waxaa toosa waxaa xaqiiqo ah in Soomaaliland ay baahi u qabto airporto kale in laga hirgeliyo. kow haddii aynu eegno hay'addan gudoomiyaha ama maareeye Rodol iyo hay'adda duulista ee Soomaaliland ee hadda jirta, Rodol oo keliya aadu ma fadhiisan karto. sabab dee isaga madaxweynayaasha xitaa ka horreeyey fursado ay haysteen kamay faa'iideysan, dadkana ugamay faa'iideen, waxba lagama hirgelin. hadda madaxweynaha joogaa waxba kamuu dhaqaajin. Boorame daahiryaale oo kasoo jeeda markii uu joogay waxba kamuu dhaqaajin. burco markii Siilaanye madaxweyne Siilaanye oo joogaa oo kasoo jeeda uu joogay waxba kamuu dhaqaajin. waxaad moodaa in qaab mafioso ah in ay shaqadan ku xil leedahay oo xitaa aan madaxweynuhu waxba ka bedeli karin. marka bal haddaynu ku noqono hadalka gudoomiyaha xafiiska Djibouti Airline ee Boorame eedihiisa siduu u sii kala dhigdhigay bal aynu sii eegno. inuu madaarkaas furmo waxaa hor taagan maareeyaha madaarada Soomaaliland. hadday sidaa Soomaaliland ku og tahay madaxweyne ku-xigeenkii baa tagay oo madaarku furan yahay, wasiiradii baa tagay uu furan yahay buu yiri, gudoomiyaasha gobolka uu furan yahay oo diyaaradaha way soo fadhiisteen. intaas soo jeer baa idaacadaha laga sheegay. sidaa daraadeed waxaan u sheegayaa bulshada Soomaaliland, waxaan u sheegayaa madaarkani ma wuxuu ku yaalaa Soomaaliland mise meel kale ku yaala. bulshada galbeedka Soomaaliland waxaan u sheegayaa madaarkii aad hamuunka u qabteen ee muddada badan sugayseen wuxuu marayaa halkiisa marayaa. inaad isku tashataan ayaan inaga codsanaynaa oo dadka reer galbeedka Soomaaliland isku tashadaan. gudoomiyaha waxaan ka jeclaa runtii inuu hadalkiisa aanu ku eekaysiin uun galbeedka ama Boorame, sababtoo ah baahida airportadu waa mid ka jirta guud ahaanba gudaha Soomaaliland. daawade haddaad eegtid dalalka jaarkeena ah magaalooyin yaryar oo xitaa la odhan karo waa tuulo, ma doonayo inaan magacaabo, ayaa laakiin leh airporto. hadda u fiirso airporto waxa leh
tuulo aan xitaa degmooyin ahayn oo kasoo inagu xeeran dalalka aynu jaarka nahay. Somaliland haddii ay rabto in ay dal noqoto, dal hal airport leh, de way adagta. hadda ninka ceerigaabo ku socdaa waa inuu Hargeysa soo maraa, ninka Baran ku socdaa waa inuu Hargeysa soo maraa. Hargeysa waa caasimadii oo lama diidana, laakiin waxaa jirta in baahi ayaa jirta. baahidaasna inta badan anigu maareeye Rodol iyo hay-adaas ku eedeynba maayo, waayo dee madaxweyneyaashii ka soo jeeday degmooyinkan ya iyo wasiirada ka soo jeeday hadda jooga, wasiiradii hore, xildhibaanada ka soo jeeda, dadkana waa dadkii ku shaqo lahaa. waxaa la yidhi geed guurti ay joogto halka aad ka soo gelayso haddaad adigu garan weydo go-a qeelo tuur maaha. ya danta adiga kuu gaara dadka kale dadka kula galgalo maaha. danta adiga kuu gaara dadka kula galgalo maaha. haddii adiga waxan ay gaar kuu tahay oo adiga laguu soo doortay ama lagaa soo doortay gobol ama degmo, in aad ogaatid in lagaa soo doortay degmadan oo wixii waajibkaagu yahay aad qabatid ayaa habboon. laakiin in aad marnaba anigu kuma degdego, mana jecli in aan eedeeyo mas-uul degmadiisii ama gobolkiisii ka shaqeeyey, waayo wuxuu Somaliland ahaan wuxuu mudan yahay in la hambaliyeeyo, in la hambaliyeeyo, waayo ninkaasi waa nin shaqadiisii qabsaday. qaranku wuxuu qurux bataa marka qof kastaaba uu intiisa qurxiyo. haddii uu xildhibaanku, wasiirku, xitaa madaxweynuhu haddii uu ka shaqeeyo intaa uu ka soo jeedo, xilku waa meerta uu warwareegi doonaa. nin walba intuu ka soo jeedo hadduu qurxiyo wixii waa wada qurux badanaya. haddii la waayey sidii caalamiga ahayd in wixii dee hadba ninkii joogaa uu waxa wada qurxiyo amaba awooddu ay saamixi weyday, nin walba inuu intiisa ka shaqeeyo ayaa qurux badan. tusaale ahaan in badan waxaan tusaale soo qaataa maareeyaha maayarka Berbera. maayarkaas runtii guud ahaanba shaqadiisa waa la mahadiyey, waayo shaqadiisii uu ka soo baxay. maaragta dadkan kale ku kooban wax dee aan ahayn shaqadoodii ama wixii loo soo doortay aan ahayn, waxaa habboon inay ka tusaale qaataan. haddii uu nin shaqo qabsaday, xildhibaankan kale iyo ninkan kale ee guddoomiyahan kale iyo wasiirkan iyo danta adiga kuu gaara dadka kula galgala maaha. siyaasaddu gaddaa maaha. guri weyn intaad gadatid ha isku daawan gudihiisa iyo gogosha quruxdeeda iyo gabadha yaabkeeda. siyaasaddu gaddaa maaha. intaas bal haddaynu hore uga sii soconno oo aynu mar kale ku noqonno hadalka guddoomiyaha. madaarkani Soomaaliland waxay leedahay hore ayaan u maray oo waxbaan qabsanay 30 sano ama 25 sano. madaarkan intaas oo diyaarad baa ka duuleysay, maantana diyaarad kama duuli kartaa la leeyahay. ma madaarada Soomaaliland buu ka duwan yahay? dadka taana waxa ka jawaabi doona dadka reer Soomaaliland. madaxweynaha waxaan faraynaa oo ka codsanaynaa oo cod dheer ugu sheegaynaa arrinta madaarka inuu soo farageliyo. isaga la doortay, isaga madaxweyne wadanka, isaga ka mas'uula. maamulkiisii ayaa waxaas ka soo baxaya. lama fadhiisan karo madaarka Boorama ayuu ka soo baxaya oo marhayn oo labahayn oo 10 jeer u tagnay. madaxweyne bulshada reer galbeedka Soomaaliland war ayay ka sugaysaa degdega inaad madaxweyne ka bixiso. waxaanu ku daraynaa madaxweyne bariguna waa la mid ilaa Baran, Ceerigaabo, Caynabo, Burco, iyaguna intaasina ninka Baran mas-uuliyiintu ay sheegeen halkaa laga turo madaxweyne isaguna ma haysto meel uu soo maro bal iyadana soo gacan geli baanu leenahay oo ayay leeyihiin.
barigu waayahay daawadayaal markasta waxaynu hambalyeynaynaa intooda qurxisa inaguna inta aynu kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa ammaano allah